waxyaabaha content creator-ka nightmare-ka ku amad garanaysa waxa weeyaan waa inkaaro waxa weeyaan adigoo video-gi maantinkii duubay oo dhameystiray ayun baad halka saawan adigu waxba duubinba kedis naalillah Welcome back ladies and gentlemen. Waa Shakur bin Rashid iyo video cusub. Maanta waxaan ka hadli doonaa speed ramp. So speed ramp waxa weeyaan cidii garanaysa cidaan garanayn marka video-gaaga aad garanayso video-gaaga muuqaalka ayaad ka dhigaysaa from fast to slow. Yani video-gu hadduu hor u socdo kala ama uu normal aha waa dadajin kartaa then in the middle markuu bartamaha marayo kala ama meel aad ugu tala gasho kala markuu marayo ayaad isku dayaysaa inaad slow motion oo kala aad ka dhigto iyo dadku aan arkayno saynaysa kadibna halkii uu ka sii bilowmo marka inta badan waxa la yiraahdaa technique-kani transitionski yani hore ayuu bedelay baa la yiraahdaa oo yani transitionska mar walba waxa la sameyn jiray marka video-ga edit gareynayso laba meel oo kasto videos kaga imanayaba transition bad dhexgelin jirtay marka imika speed ramp kana inta badan dadku isticmaalaan oo iska standard marka speed ramp kaas inta leegi doona waxaan ka eegi doonaa inagoo isticmaalna Premiere Pro waa lagu sameeyaa software-ada kale wax lagu edit gareeyo laakiin khaasatan anagu waxaan maanta isticmaali doonaa Premiere Pro so marka hore video-ga intaan gelin waxaan ka codsanayaa fadlan hadduu video-ga ka cajabina like saarto sidoo kale aad subscribe tiraahdo channelka ku soo biirto haddii aad xiisayso filmmaking-ka iyo techniques-ka la xiriira filmmaking-ka oo dhan sidoo kale aad asxaabtaada la share garayso video-gan oo aad uga faa'iideyso notification balkana aad taabato si uu kuu soo gaadho waxyaabo kasta oo aan soo geliya oo aad noqoto qofka ugu horeeya ee daawada video-yadan iyo qaar kale oo xiiso badanba aad baad mahadsan tahay aynu u galno video-ga ina marsha waayahay marka soo gasho marka koowaad Premiere Pro aniguna Premiere baan isticmaalayaa laakiin software-ada kale Final Cut-ka ama DaVinci Resolve-ka Sony Vegas-ka waxyaabahaas oo dhan way ku shaqeeyaan oo feature-kan way leeyihiin speed ramp-ka video-ga nimka waxay ninka ordaya saad arkaysaan wax slow motion iyo waxba toona ma waa video caadi oo dhameystiran oo sidii lagu duubaya marka waxaan isku dayi doonaa marka koowaad inaynu sameeyno speed ramp-kii aynu u baahnayn marka waxaan cabiranaynaa marka koowaad position-kan u baahanahay inaynu ka sameeyno speed ramp-ka okay bartaasaan uga baahanahay baan ugu taabsanaya keyboard-kayga kadibna marker buu samaynayaa calaamadaas markaa saartay halkaan markaasaan la soo calaamadaasaan saartay markaasaan u garto bartii slow motion-ka uu ka bilownayaa marka waxaad samayn doontaa layer-ka yar ee ka sarreeya halkaa imkaan calaamadanayo halkaa layer-ka sare ayaad kor jeedi doontaa ama mase halkan ayaad hoos jeedisaa si uu kala baxo halka waxaad ku arkaysaan calaamada yar ee FX-ka oo khusaysa yani waxyaabaha effects-yada iyo waxyaabahaas marka lagu daro ay calaamadaas u taagan tahay marka waxaad samayn doontaa calaamada yar ayaad right click siin doontaa timer baad ka tagi doontaa speed baad ka saari doontaa waad scale zoom garaysan doontaa still wali in yar baad ku dari doontaa okay waxa ku soo baxday calaamada yar naqan oo ah keyframe-ku waxa weeyaan halka imika markuu marayo time-ka noocaasa tusaale ahaan halkaas imika time-ka markuu soo socdo 15 seconds halka markuu socdo barta markuu marayo slow motion iga dhig ilaa bartiin doonano halkaas imika soo bilowna tusaale ahaan imika halka markaan taaganahay meelaha ayaan imika la taabsanayaa dabadna wuu sameeynaya calaamad kale marka labada in halka iyo halka laanta u dhaxaysa halka ilaa halka inta u dhaxaysa ayaan rabaa in slow motion ku iga dhaco anigoon markaa kad garaynaynin clip-kaygii halkaasina ka soo bilaabaynaa halkaasina ka bilaabi doonaa tig baad saari doontaa wadisaa all to the way ilaa xagga u dambaysa tig baad halkaa saaraysaa waxaa halkaa markaa calaamada labada yar calaamadood waxay u taagan yihiin separate cut-kii oo kale aan awal samayn jirnay marka 3 clip oo kala duwan weeyaan inta dhexda ku jirta aynu baahanay inaan slow motion ku sameeyno lead-ka yar ee dhex marayaad qaban kadibna hoos bari jeedi waxaad moodaa inay ka durugtay dib u soo celi halkaynu baahnay naga keensanay
wakaas aynu bal eegna hadda imika siduu u ekaado. waad arkaysaa xoog buu soo socdaa, halkaa markuu marayo ayuu slow motion samaynaya. waynu ka sii badin karnaa slow motionka. haddii calaamadu xaggaa kaga durugto, calaamada yar halkaa yar ee cad baad soo qabani, waad soo dhaweyni markaa. balaan eegno. Okay, very nice. sumaynu soo siisano. waxaad arki karaysaa inuu xoogu soo socdo, in sidii caadiga soo socdo. bartaa markuu marayo inuu slow motionkii sameynaya ayaad arkaysaa. kolba saad jeceshahay. haddaad u baahan tahay inuu halkaas ay dhaqso badan noqotona, kor baad u qaadi doontaa liidka. dabeedna halkan imika saa ka soo qallocsantay, kor bay u qalloocsanaan doontaa, oo taasina waxay kuu sheegi doontaa in intaas speedkeeda kor loo dallacay. imika haddaad u fiirsatay, halkaa markay marayso hoosta ay usoo dhaadhacday 90 degree weyaan. markaa saynu smooth uga dhigno, saynu soo sheegnay 3 kilib weyaan. calaamadaasi waa 3 meelood, labada meelood iyo 3 kilib u kala qaybiyeen. kilibkeena caadiga waa qaybtaas, liidka halka wixii ka xiga waa qaybtana waa qaybtan yaryaraynano, qaybta halkaa ka xigta markarkuna waxa weeyaan qaybtii hore. markaa kilibkeena caadiga inagoon kadkaraynin ayaynu 3 qaybood ka dhignay. marka halkaa markay marayso, slow motionku wuxuu bilowmayaa calaamada yar ee hoos u soo daadegsan ee muddo in ay 90 degree tahay. hoosta markuu 90 degree-ga soo dhaadhaco waxa weeyaan yani si adag weeyaan oo aan smooth ahayn. marka saynu smooth uga dhigno, waa inaynu calaamada qabanaa, saa waynanu jiifinaa 90 degree. calaamada yar cad bad qaban ee marka hore halkaa markaynu time rababanka samaynay ay ku samaysay, taasoo kala lamida. dabeedna waxaad ka dhigaysaa smooth. markaa saas uu soo soconayaa, aayar buu smooth gelaya. aynu eegno. siro fiican buu soo galay. halkaa markuu marayo ayay haddana 90 degree kale uu ku dhacaya, amabse 45kii kale uu ku dhacaya. markaa saynu smooth uga sii dhigno, saasaynu qafiifin karnaa. waxaynu idhi marka koowaad, halka calaamada FX way ku qoran tahay ayaad right click siin, time reverb ka tagi, speed ka tagi, kor baad yar dalaci doontaa clipkaagan si aad u aragto calaamada halkaa taal, calaamada yar oo ah keyframe. kadibna meeshaad u baahantahay marker saaran doontaa. dabeetana labada meelood ee aad ugu talagashay inaad slow motionka ka dhigto ayaad calaamad saaran doontaa. kadibna hoos baad soo jiidi doontaa calaamada yar. markaad taabsato marker koowaad markaad istaagsan tahay ayaa waxaan taabtitaa calaamada yar baa soo baxday ee keyframe-ka ilaa iyo halkii aan doonayay inuu ku dhammaaday slow motionku. kadibna waxaan taabtay calaamadii keyframe-ka, waxay soo baxay calaamada yar ee iyaduna ay igaga tagtay keyframe-ku. markaas ayaan iskugu talagalay inaan hoos soo jiideyntaa labada meelood ee keyframe-ka ay ku samaysatay ayaa ay ka dhigan tahay. kor baa u dhici karta ama hoos baa u dhici karta. marka hoos baan u dhigay halkaas oo aan ugu talagalay in slow motionku ka dhaco. slow motionkina waa kaa. marka videoga inta hore waa caadi, slow motionka halkaas ku dhacaya, halkaas marka dambe kasii biloomaya. intaas weeyaan markaa time reverb-ku. so inta inoogu ekaada videogu, waxaan rajeynaya inaad wax fiican aad ka fahantay oo aad si fiican aad uga faa'iidaysatay tutorialka yar. waxaan rajeynaya inaad isticmaali doonto videoyadaadana halkii aad ka siin lahayd. dabeetana laba kad intaad siiso dhexdooda aad dabeedna slow motion ka dhigi lahayd, ka kalena aad caadigiisa ku dayn lahayd ama aad dedejin lahayd sidaan soo sheegnay. aad iska dayn doonto oo aad isticmaali doonto technique cusub ee speed ramp-ka ee Premiere Pro-ga dhexdiisa ah. fadlan mar labaad waxaan ka codsanayaa videogan aad ka heshay inaad like saarto. taasi waxay ka caawinaysaa inaan mar walba kusoo dhiirado videoyadan iyo qaar kale ka fiican inaan soo upload garayo. sidoo kale aad subscribe tiraado channelka kusoo biirto, notification bell-kana aadan ilaabin. sidoo kale aad igula wadaagto barta commentiga aaraadaada iyo afkaartaada. aniga tusaale ahaan Premiere baan isticmaalaa, adigu maxaad isticmaashaa software-ka ila wadaag. videoga kala duwan oo fiican oo inoo soo socdaan. aad baad mahadsan tahay. tan iyo intaan ku kulmi doono videoga kale. وشكرا بدشيد الله peace. اتذكر لك God bless us. God bless us. كان وجود ضمن يعني يوم متسجل بدنا اليوم.